magacaygu waa Marwo ana bisadan le oo la daweynay marka maalinta bisadeedu xanuunsatay aad baan u murugooday ismaan lahayn barxtabad Hargeysa ka halaysa oo daweynay bisada anu qurbahan ka imi Ingiriisan ka imi xawayanka waa la daneeyaa waa la daweeyaa marka aynan saaxiib nahay oo ay igu soo tilmaamtay jaamacadan oo ay igu tiri xaqa xawayanka lagu daweeyo bisadaha iyo iyadiyo arigaba waxa ku dhigay kaada bisadan muddo 12 saacadood ilaa 48 saacadood kaadi ku dhiganayd runtii may kacayn kaadi baa ka buuxsantay qaybta halka xundurtaagteeda kadib waxaan u fidinay adeeg caafimaad oo nagu qaatay 12 cisho inaan ku dhamaystirno waxaan gelinay catheterkii markaan gelinay ku guuleysana kaadina dibadda ka keeno waxa dhacay waxa develop gareysay infection systemic infection haddana waxaan u qornay course antibiotic 7 cisho antibiotic waan ku guuleysanay haddana waxa dhacay meeshii kaadidu fadhiisata afar isu bedeshay haddana afraskii baan manage gareynay daweynay alxamdulillah bisadu way fiicantay way fiicnaatay dawadina way dhamaysatay dawo ciyaaraysa bisadii kale la dhashay walaalaha ahaayeen oo laba kalaan way la ciyaartaa marka bisadeedii marka la daweeyay aad baan u faraxsano oo adiga marka arkay bisadeedu salaaxay alxamdulillah waa liib la ciyaaraa caafimaadkiisu waa 100% aad baan ugu faraxsanayna horta dadku way la yaabaano bisad la daweynayay way la yaabayaan dadkeenu oo veterinary-ga ma garanayaanba marka hadda la yiraahdo bisad halkan lagu daweynaya markan clinic-ga keenay qayliyaysa ama aan qabanayno ama aan suuxinayno qayladooda ay dadku daaqada noo soo istaagan clinic-ga bisad see oranaysaa iska siidee waa miskiinada marka ma fahansana dadkeenu in bisadaha la daweyn karo caseska intan jaamacadda Golis Clinic-geeda joognay ama aan joognay si guud waxaan qabanay in ka badan 82 case oo isugu jira xayawaano kala duwan